maxamed siciidow waxaad dib ugu soo laabateen dalkiina hooyo 7 sano kadib xabsi aad ku soo qaadateen dalka India marka hore bal faahfaahin inaga sii adigu sanadkee ayaa lagu qabtay iyo marxaladii aad soo martay inoo bilow aniga waxaa la qabtay 2011 bishii saddexaad 13 March 13 ayaa la qabtay waxaa laga qabtay biyaha India badweynta India laga qabtay oo biyaha internationalka waxay qabtay maraakiibta India oo ciidanka militariga Hindiya iska leeyihiin waxa la geeyay magaalada Bombay oo Hindiya ku taala 2011 bishii March 16 last week waxa la gudbiyay jeel ku yaala Atro waa laga qaaday 20 bishii ayaa waxa la geeyay Tuluja jeelkan ugu imaanaysa adiga Ibrahim Bafaratiyagu oo bariga Bombay ku yaala ayaa la geeyay 2011 bishii March 20 waayahay jeelkaas oo duleedka Bombay ku yaala oo anigana aan idinku soo booqday Febraayo sanadii 2017 waxaan rabaa dhageystayaasha idaacadda SBS laantafka Soomaaliga balada inaa u sharaxdid qaabka jeelkaasi uu yahay meelaha aad seexan jirteen sida aad u nooleedeen iyo 7 sano aad jeelkaas ku jirteen bal horta jeelka iridda inaga geliyo ilaa ay gudaha bal inoo sharax jeelka markii aad gashid sidii jeelasha caalamiga ku soo yahay qofka waa la baaraa waa la siidayaa jeelku maadaama uu sadad badan lahayn waagina la geeyay oo dad yar ku xirnaayeen jeelka gudihiisa waa 5 qaybood qaybtiina waa 16 qol qaybtu waxa ka bilaabataa 1 2 sargal 1 sargal 2 sargal 3 sargal 4 annaka waxa la geeyay sargal 4 ayaa la geeyay laba xilligaas la geeyay meesha qaybtuna la geeyay hoos ayaa laga digaa qadalka korcid loo ahaa waxa loo geeyay 4 qol ayaa la dejiyo meesha ku taala waxa loo geeyay niman islaam oo 4 nin oo meesha ku xiran ayaa la saacideeyay maadaama aan dar iyo mataqaana agab kala mid aan wadin ayay khamiisyo iyo dacas iyo saabuun dhamaan loo qaaday kitaabayna siiyeen waxay kaloo siiyeen jaydaha lagu tukado salaada lagu tukado ayayna siiyeen maadaama dad islaam ah oo salaada oogaya markaas waxa ahayn 104 ayaa ahayn 12 beri ka bacdi ayaa waxna loo keenay 16 nin oo la soo qabtay iyagana bartiina laga soo qabtay waxaan noqonay 120 qof ayaa meesha ku noqonay marxalad kala duwan ayaa lagu soo maray waxaan ku jirnay meesha Hindidii waa taqaanaa xabsiyo qofka cusub waa la harowsadaa Hindidii meesha loo soo horeysay wadanka degelay ayaan 3 goor jirnay qaar anaka naga mid way sakiimayeen anakuna iyaga qaar ka mid ah wax gaarsiinay maamulka jeelku waana kala soocay anaka waxa la geeyay qayb gooni kaligeed oo qof Hindiya loo keenay muddo hal sano ka bacdi ayay noo yimaadeen nimankii jeelka haysta waxay nagu yiraahdeen dadka waalidiin keenaya marka luqadiina waa barateen dadka caadi wala macaamila waxaan ku niri awal baa anaka macaamilkeenu muu saxumeyn ayagana harowsanay maadaama jeelka ku cusbayn cid allaale cidii loo keeno wala macaamilna saas ayaa shacabka Hindiya u dhaxgalnay oo uga mid noqonay annaka 4 qol degan lama kala qaybin 120 keena 4 qol ayaa degan 6 sano iyo bar oo see u kala seexanayseen mar 4 qol see u kala seexanayseen 120 waa tiro aad u badan iyo 4 qol baad sheegtay waxa qolkii waxa deganaa 3 qofood qolku waa 16 mitir oo dhinaca ilaa 13 mitir oo balarka ah goglaha waxa la siiyaa bahalla Soomaalidu in taqaaniin kala ma aqaan waxa la yiraahdaa chadar biirahi saddex xabaan la sii jiray oo la saaray iyo barkin ayaa qofka sharci u leeyahay waa go iyo labada la dhiganayo dhulka iyo barkin yar oo geeda ku jiraan oo qofka uu barkayo waan isku dhagsay qofkii wuxuu leeyahay 4 taako ama uu leeyahay shabtada 4 taako leeyahay qofkii oo dhiganaya goosh Ibrahim Chowdhury ma ahan meesha waxa la siiyay waa istijaayad yar oo ku salaada camal oo dheer weey oo Hindiya laga waayay maxamedow cuntada aad cuni jirteen Soomaali baa ahaydeen waa la ogyahay Soomaali wax laga cuni jiray India markaa tagteen qaabkii cuntada see ula qabsateen waa la qabsan cuntadii dad badan aan ka mid ku xanuunsadeen aad ugu xanuunsadeen kuwa macluul daraadigii hal sano ka hor intii aanan lacagta helin oo aan qaraabadeena ka wareegin dad ayaa isbitaalada yaalay ilaa 28 qof oo isbitaalka la dhigay maxaa yeelay cunada cunaan dhaqan lahan waxaan weligii arag ku jireen geedi aan weligii arag oo qudaar ku sheegay in la siin jiray waxaan dhaqan waxa meesha ka yaalay rooti qofka la siin jiray 6 xabo oo doorkiya iyo 6 habeenkiya oo dadka shiriga la siiyo anaga ragmaan dadka shiriga la siiyo waxay cunaan baa la jabaati marka geedaha maxaa ula jeedaa macna qudaar ma ka wadaa wax oo vegetarian ka cuna iyagu qudaarayna u sheegay laakiin waxaan weligii aragna maahan waxa la qabsan karo iyo waxaan weligii aragna maahan waa geedi anaga noo yihiin quracayna noo soo quracayna mid ahayn way maxamedow dhanka kale waxaanu la soconay in 3 meesha ay kaga geeriyootay Allah u naxariistay
dhalinyaradaas meesha ku dhimatay maxay u dhinteen iyagu ninkii ugu horreeyey waxaa la oran jiray cabdirasaaq maxamuud jaamac ninkaasi sheeraha ayaa waagi hore xabad uga dhaceen soomaaliya intii la joogay biyana way ka galeen habeen saq dhexe ayaa lagu soo booyey meesha ayaan albaabka ayaan garacnay askarta ayaa noo timi dhakhtarkii baa nooga keenay waan saarnay isbitaalka ayaan siixinay isbitaalka markaan geenay nimankii loo geeyey hindidaas iga raacay isagoo feeraha bisiska ah markii ay feeraha ku dhufteen subaxdii ayuu akhbaar noo soo diray wuxuu yidhi xalay waa la idilay isagoo sankii afka dhiig ka wada waxaan u yeernay ninkii meesha haysto sargaalka waxaan ku dhiray ninkan xalay waa la dilay awal lagu xanuunsanaayo xanuun baa meesha u keenay nimankii dilay waxa ka qortaa statement qaabka idinkaan u dilay ka qor wuxuu yidhi waa ka qorayaa asagiina waxaan u diray isbitaal ayaa loo diray 3 beri ka bacdi lagu geeriyey ninkaas wuxuu noolaa asagana basbuuc waayahay yaa ku xigay waxaa ku xigay axmed khaliif oo isagu meesha aada ugu dhibaatooday 2 sano iyo dhowr bilood ayuu meesha dhex yaalay wuxuu gaaray ninkaas inuu dhiig tufo oo muqaacyo saidii noqoto isbitaal loo diri waayo waxaa ku dhacay tibisho waa garta isku qola aheedeen marka aniga waa la deganaa isku qola ahayn axmed khaliif dadkii isbitaalka waxaa geeyaan kamid ahaa waxaan wacnay walaashiis oo soomaaliya joogtay iyo aabihiis ayaan wacnay waxaan ku dhiray ninkan adoo usoo dira safaaradana annaka wixii lacaga mataqaana iyo wixii wara kala hadleyna waxaan ninkan isbitaal bareefad hala geeyo halagu daaweeyo isbitaalla waaweyn meesha leedahay ama waxaan la hadalnay qunsulkii wuxuu naga ballan qaaday inuu axmed khaliif ehelkiisa haday yimaadaan banaanka uu saari doono isbitaal bareefad ugu diri doono ayuu naga ballan qaaday walaashiis way timi jeelka ayay nagu soo boqotay isagana waxaa la geeyey isbitaal jj maxkamadii iyo qoladii isbitaalka iyo dhammaantood waa ninkan in la saaro banaanka loo saaro oo isbitaal bareefad la geeyo qunsulkii wuxuu waxaan qaban kara malaha maxkamadda iyo qolada caafimaadka laga rabaa ninkan waxba laga qaban karin qolada caafimaadka oo hadda isbitaalka u yaala laga rabaa warqad cadaynaysa inaysan waxba ka qaban karin si isbitaalka loogu wareejiyo haddii aan warqadaas la helin anigu waxba ma qaban karayo marka xabsiga miyuu ku dhintay mise isbitaalku ku dhintay markii dambe isbitaalku ku dhintay isbitaalku ku nafbaxay isbitaalku kuna baxay isagoo isbitaalkaas wuxuu yaalay ilaa 3 bilood 4 bilood oo yaal waay wiilka saddexaadna ninka saddexaad waxaa la oran jiray Toor Bashiir Barre Allah u naxariisto wuxuu qabay sokor waagii aan nimi 2010 ku dhacday oo intaas uu isticmaalayay cibrada sokorta ayuu isticmaalayay marna way kacaysay marna hoos u dhacaysay sokortiisu waxaa ku sii dhacay tibisho 2017 ayuu geeriyooday waxaa ku sii dhacay tibisho isbitaalka ayaa dhignay wuxuu yaalay muddo 4 bilood ayuu isbitaalka yaalay bishii shanaad ayuu geeriyooday sokortii tibishadii ay sidartay ayuu geeriyooday 7 sano ayaad xirneed oo xurriyadaada aad haysan oo xabsi dal shisheeye weliba aad ku jirtay falalka laydinku eedeeyana waxaad tiraahdeen waxaad shaqo ku lahaydeen ma aysan ahayn sida idinkuba aad maxkamadda aad ku sheegteen markii hore iyo qaabka laydinku soo qabtay waxay doontaba ha ahaatee maxaad ugu baaqaysaa marka dhalinyarada soomaaliyeed iyo dowladduba dadka kale ee weli ku xiran xabsiyada dalalka shisheeye waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada soomaaliyeed kow waxaan leeyahay annaka soo aragna dowladnimo la-aan waxay leedahay waagii ninkan hadda la doorto wixii ka horreeyey meesha ku bahdilnay waxaana la oran jiray dad maahaydin duwaag baa tihiin waxaan dhalinyarada soomaaliyeed ka codsanaya gacmaha inay isqabsadaan qabyaalad iska dhaafaan walaalnimada ay gacmaha isqabsadaan maxaa yeelay qof kasta qofkii dan qabiil leh iyo kii dan maamul leh iyo kii dan qoys leh danta guud markii la helo danka soomaaliyeed la helo qof kasta dhankiisa waa helaya sababtoo ah haddii aan dan la helin 20 sano dawlad aan ahayd cid waxay maamulada waa arkay maamulka sameeyo tahay maxay heleen cid wax helaysa lama arko markii dan Soomaaliyeed la helo magaceedna waa soo laabanaya qof kasta waxa uu u baahan yahay iyo hadduu dan qabiil lahaa iyo hadduu dan qoys lahaa iyo haddii mataqaana uu lahaa dan maamul inta wuxuu ka dhexeeyaa dadka Soomaaliyeed waxaa la dadka Soomaaliyeed dhalinyaro odayaal gabdho gacanta isqabsada Maxamed Saciid hadda markii aad dib ugu soo laabatay xamar oo diyaaradii qaaska ahayd oo idin waday ee garoonka aadan cadaydu ku soo dejisay bal dareenkaaga siduu yahay iyo maanta oo gurigaaga aad joogtay ka waran iyo reerkaaga markaad ku biirtay wallahi Ibrahim oo dareenkayga lama qiyaasi karin waxaan ku jirtaa dhinaca oo dhaca markii aad uu yiri ninkii diyaaradda hagay halka waa Adaacada International Airport wanahay garaacayno dhiiga ka soo degay meesha sababtoo ah muddo badanna waa ka maqnaa isma lahayn dib ugu laabatay Soomaaliya maxaa yeelay waagi waxay noo qoreen kiisas badan noo qoreen aniga weligii nidiga ma soo gelin dib ugu laabantaa amarkii ilaahay meeshu waa laakiin waxa ay noo qoreen hudii noo sheegeen oo akhriyay oo safaaraddu noo akhrisay inay wax dijital yihiin noo sheegay oo qofka u sakeeya uu yahay xasidayn marka waa malaysan waayey waana dareemi kartaa qofka 2 sano xirnaayo ehelkiisii iyo dadkiisii ka maqnaa oo mas'uuliyad adag loo haysto bisha laga saaray oo ilaahay ka soo fardaamiyay farxad inta ee laagtaadu waa dareemi kartaa